guddiga waxgaradka Soomaaliyeed ee xukuumadda deegaanka Soomaalidu u xil saartay xalka gaadhida shaqaqooyinka dhexmartay bulshada xoolo dhaqatada ee aagga Raasiya Salaxaad oo muddo 2 toddobaad ah nabadeynta beelahaasi iyo kuurgelid ka waday aaggaasi ayaa dib ugu soo noqday magaalada Jijjiga. guddigan oo hawlaha nabadeynta labadaasi beelad weli halkii ka sii wada ayaa kulan ku yeeshay hoolka shirarka ee qaryahan Doodaan ee magaalada Jijjiga. kulankaas ka soo qayb galay hoggaanka nabadgelyada deegaanka Dr. Xuseen Xaashi Qaasim isla markaana uu ku weheliyay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha Mudane Cabdirasaaq Sayid oo asagu hawshaasi muddo waday. kulankaasi intuu socdayna waxa la isku xog wareysanayay ama lagu falanqeynayay waxyaabaha ay guddigu ku soo arkeen nawaaxiga Raase iyo Salaxaad iyo sidii xal waara looga gaari lahaa isku dhacyadan beelaha ee ku soo noqnoqonaya aaggaasi. waxaana kulankaasi ay guddiga xalinta khilaafaadku yeesheen wareysi naga siiyay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha Mudane Cabdirasaaq Sayid. guddigu waxay la fagurahayaan si fiican uga doodahayaan xogihii ay soo heleen ay soo urursadeen halkay maanta ay la marayso qaabka ay yeelanayso wejiga ay yeelanayso nin walba wuxuu xog hayay iyo wuxuu buugu ku qoray luqmanaanshihiisa nin walba se wax u aragtaa baa la leeyahay waxaana filaynaa insha Allah inay ka soo bixi doonto wax fara badan oo dadka anfici doona maxaa yeelay ilaa Raase maalinkii aanu tagnay ilaa maalinkii u dambeysay aanu lagahita ka soo kala haynay intii u dhaxaysay waxaan ururinaynay xog baahayd dadkii aanu isu keenaynay waxaanu kala baxaynay intaas oo dhan xog buu ahaa qabalayadii aan maraynay xog bay ahaayeen goobihii aanu booqanaynay oo dhan waxaanu ka urursanaynay wuxuu ahaa xog ayuu ahaa marka wixii xog la soo keenay oo dhan ayaa la falanqeynayaa kuwa qoraalna lagu keenay oo kala gedsan baa jiray kuwa aanu cagahanaga ku helay baa jiray kuwa aanu maqal ku qaadanay baa jiray kuwa xitaa dhaxda aanu ku soo maray oo qoraal ah oo kale oo xafiisyada dawladda ka soo helay baa jiray marka dhammaan wixii xog la heli karay oo dhan ayuu guddigu si habsami leh uga doodahayaa meel fiicanna waa u socota hawshooda hadduu Ilaahay yiraahdo waxaana walaalaha u sheegaynaa dhammaan naga warsugahayay in hawshu noo fiican tahay meel fiicanna ay marayso rajaynaynana wax lagu walaaloobo inuu soo bixi doono hadduu Ilaahay yiraahdo